الله وبركاته أصحابتي الغالية ويلكم أنا ذا الفيديو ولكن كلنا إذا ما أنت محوين وذا محانا إنسيدا محانا إليه أنت وحاني وذا قف دنيا السحر ليك مسنا وحيد بدون كده على هاي مسهر مركز كحل ليس لهيس أيضا لحي 8 سنة جرتا وإنده أي بشي وحالها مجاعدا بوفانجا ير وصاحب عن هاي أنكو حيرني يوتيوب كيس أسود اللي مانتا هنا فيديو أنك هذا فيديو أنا روا أصحابي إلى داود Baba Vanga waa saaxiirada ugu weyn ee loogu dhageysiga badan yahay dunida wax badan oo kamid ah ishaarooyinkeeda mustaqbalkuna waxa ay noqdeen kuwa xaqiiq ah ilaa iyada oo nool laamaha istikhbaaraadka dawladuhu waraysi qaas ah ay la sameeyaan dib u soo bixida cudurka coronavirusku waxa dib loo xusuustay hadaladii Baba Vanga saaxiirada Baba Vanga sanadkan 2020 waxay sheegtay waxyaabo aad u cabsi badan una laga baqa inuu dhici doono وانا هون وكان ما انا امسني لكن الله وين واحد موقف عاقل سيشتي عذر كاس عذر ان الاخرين ايا دعاي هذا عذر كان وضع دعاي سان امالين يكون فيرس ونقضي وانا لسوب الله وانا الدون ما له قف ودن walbo على xire waxa ay sheegtay waxyaabo walwal iyo cabsi badan ay ku jiraan inay dhici doonaan where she was getting this information. Is it possible she was able to access some kind of knowledge that's out there that normal people cannot access? horaan Baba Vanga waxa ay sheegtay madaxweynaha 44aad ee وين sheegtay madaxweynaha America inuu noqon doono qof Afrikaan oo noqday Barack Obama aan noqday aan si wada aragna bal hadaladeeda ma hadal ay iska dhaadmiyaa mise waa hadal sax oo ka soo baxay qalbigeeda wali qofkan ma naqaan sixir inuu yahay inuu muqaf alla weyn waaxid qofkan wuxuu hadaladan oo iskaga hadlay inuu alla u rumeeyay inuu dhici karta mid koowaad balasi daawna asxaabay USA inuu noqon doono qof madow ah Barack Obama. The 44th president of the United States will be an African American man. Everyone will put their hopes in him. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. sidoo kale waxa ay horay u sheegtay weerankii American daariyashi taaliyash laga taadigu weyneed in la dumina ay sheegtay mid kale ay la dhaadiyay waana la duminaya taalooyinkaas Mareykanka ahay balansi daawana oo kuwa looga la dumiyo saan bilaadu ku duminay suuga mataanaha ee Mareykanka. American president will fall after being attacked by the steel birds. Baba Vanga waxa sidoo kale lagu xusuustaa ishaarooyinkeeda soo isbixida ururka Daesh iyo qalalaasooyinka Suuriya. Baba Vanga hadaladeeda intooda badan aad ayaa loo qaniyaa xukuumadda Bulgaria ayaana haysa waxaan si muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa qaar kamid ah hadalada shooga dhaliye ee sanadkan 2020 ee Baba Vanga ay sheegtay. Baba Vanga waxa ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump cudur aan la aqoon in dhagaha uu tiri doono sidaasina maskaxda nabar uu uga soo bixi doono ugu dambeynna Donald Trump sidaasi in uu ku dhiman doono ayay saadaalisay Donald Trump oo istiqaalahay taan rajayto cudur aan la aqoon 2020 inuu kaga dhici doono maskaxda kadib uu dhiman doono balansi aragno sidoo kale waxa ay sheegtay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in shinqow dil ah ilaaladiisa midkood uu u maleegi doono balse waxa ay raacisay in lagu fashilmi doono ama in lagu guuleysan doono ma ogi laakiin Putin waa in feejignaan uu madaxweynaha Ruushka inay sheegtay in loo geysan doono dil u geysan doonaan ilaaladiisa kadibna waxay raacisay in lagu fashilmi doono si aragna muujiya Пойдет отравленный дождь, и животные погибнут, и рыбы. Конца света спасутся лишь те, кто избавится от злобы и зависти, кто сможет стать другим. Ничего не спасет, ни побег в другие страны, ни деньги, только чистота и
изнутри. Новой столицей мира станет Петербург. Во главе будет человек, который смотрит ясно и говорит четко. Он много повидал, много сделал, но по-настоящему великим станет после конца. asal ahaan Baba Vanga waa qof indhool ah oo waxba aanan arag, balse guud ahaan dunida daafaheedu ayaa looga kala imaadaa. xitaa siyaasiyiinta iyo hogaamiyaashii dunida Hitler ayaa la sheegaa in gurigeeda uu soo booqday. William Henry waxaa la dhahaa wariye oo ka tirsan dowladda Amerika. Soo sheegay Baba Vanga daaqada inay ka qaadan jirtay hadallada ruuxaamaha iyo wax aan loo joogin, kadibna uu sii raaciyay qofka gurigeeda soo galay inay kor ka sheegta asagoo oo dhahaaya ayadoo dhahaysa qofkaas ayaa igu soo socday aan si arag. saaxiirada Baba Vanga dhaqamadeedu waxaa ka mid ah sida la sheegay in daaqadaha hoostoodu habeenkii ay seexato, saacadaha dambe ee habeenkiina daaqadaha ay furan jirtay. waxa ayna sheegi jirtay in macluumaad ay ka qaadato ruuxaan iyo waxyaabo aanan la aqoon. dadka gurigeeda ku soo booqanayana iyadoo aanan arkin ayay sheegi jirtay macluumaad qofka ku saabsan. waxaa sidani dhahay dadka ugu dhow ee guriga kula noolaa. Baba Vanga said that she could see in her mind's eye. And when she would look at a person, she said that